بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada somcoders.com waa anigu ah Abdulfataax Cabdilaahi koorskeeni asaasiga Bootstrap 4 casharkeeni hore waxaan ku soo qaadanay qaab dhismeedka bogga iyo sida loo isticmaalo jiiftaha iyo joogtaha casharkeena waxaan ku qaadan doonaa qaybta ugu muhiimsan ee Bootstrap marka la joogo oo ah breakpoints wax kale ma aha waa qaabka boggaagu uga soo kala baxaya shaashadaha siyaabo kala duwan hadii laga soo galo mobile sidee uu soo baxaya hadii laga soo galo laptop sidee uu soo baxaya hadii laga soo galo TV smart TV sidee uu soo baxaya marka Bootstrap waxa uu qaybsaa 5 qaybood oo ay ugu horeyso XS oo ah smaller screens SM oo ah smaller screens medium screens large screens iyo extra large screens mid walbana qaybta uu ka tirsan yahay ama kooxda uu ka tirsan yahay halkan ay ku sawiran tahay hadii aad doonaysid qaabka mobilka boggaagu soo baxaya mar walba waxaad target garanaysaa XS sidoo kale portraitka MD laptopska kale LG-gan xataa qaarka laptopska qaarkood ayaa soo gali kara iyo Amazon Kindle kale sidoo kale XL oo ah extra large screen kana waxa soo gali kara laptopska TV-yada iyo desktopska waxyaabaha muhiimka ah hadaba maxay yihiin waxa muhiimka ah weeye SM wuxuu saameyn ku yeelanayaa wax allaale wixii ka weyn ee ah medium large iyo extra large hadii aad SM sheegtid saddexdan ka weyn oo dhan waxay qaadanayaan cabirka isaga ugu qorshaysay ilaa aad ka sheegtid ka ugu soo xiga hadaa medium sheegtid wuxuu qaadanayaan labadan ku xiga waxay qaadanayaan wixii medium ah sheegtay hadaa large sheegtidna extra large wuxuu qaadanayaa large-ga cabirkaas siisay marka waynu eegi doonaa tusaalahooda aynu bilowno hadaba aynu dhahno go live meesha ugu dambeysay aynu joogtay si aad ogaataan colorka ay isbedelay waxaan isticmaalayaa dark blue oo ah colorkan indhaha u fiican iyo qoraalka midabkaas isticmaalaya marka waxa muhiimka ah ay tahay inaan ku soo danaxo height ama joog 100 pixel ayaan siinayna jooga si aynu si fiican ugu aragno marka aynu tijaabino soo baxayaan sidana soo baxayaan waxa kale oo muhiim ah waxaan ku duubay extension-ka la dhaho Bootstrap responsive helper baa waxa ku tusaa mar walba grid-ka meesha ka joogta ay ku tusaysaa marka shaashadan yareysid marka hadda waxaan joogaa extra small hadii aan weyneysiiyo waxa ku leedahay waxa joogtaa extra large marka halkaas ayay gala socon kartaan waxaan ugu duubay tusaale ahaan awgeed aan bilowna hadaba si aynu u ogaano qaab dhismeedka bogga u shaqeynayo waa inaan soo furanaa page cusub division ama divider kalaaskiisu yahay row oo leh division kale oo kalaaskiisu yahay column waxaan rabaa inaan samaysto 6 column tab ayaan leeyahay 6 column ayaan samaystay wax qoraal kuma qorna waxaan ku qori karaa 1 2 3 qoraalka ayaan ku qoraa marka waxaan rabaa 6 column haddaan full screen ka dhigo waxay mar walba qaybsanayaan ama saamiga ay helayaan waxa weeye 12kii page ka koobnaa 12ka joogta ayay mid walba wuxuu ka qaybsanayaa intiis marka mid walba wuxuu qaatay maadaama ay lix yihiin mid walba wuxuu qaadanayaa column 2 oo kale ayuu qaadanayaa auto waxa weeye mar walba automatic page-ka uu isku fit garanaya marka aynu soo gudubno hadaba columns-keeni waxa ugu muhiimsan aynu ku bilaabno waxay tahay column-kan marka uu yahay small screen-ska SM waxa ku fadhiisataa 6daas maxay tahay boqolkiiba 50 ku fadhiiso halkii column-ka koowaad oo boqolkiiba 50 ku fadhiiso ka labaad oo boqolkiiba 50 ku fadhiiso waayahay aynu tijaabino haddaad doonaysid responsive-ka Mozilla ama Chrome inspect element bacdi calaamadda yar icon-ka ku dhufo hadii kala shortcut doonaysid waxa leedahay Ctrl Shift M automatic ku geenaya marka halkan ay ugu jiraan devices-ka kala duwanaa marka halkaasna waad la socon kartaa device-kan jooga mar walba aan ku dhufanayaa iPad wuxuu ka tirsan yahay medium screen-ska waxaan ku dhufanayaa Samsung Galaxy S9 oo ka tirsan extra smaller screens marka haddaan SM-kii aan bedelay doonayo waxaan ku dhufanayaa landscape-kii ama jiiftaheedii landscape-kii mid walba wuxuu qaatay boqolkiiba 50 waa inagii u cadaynay halka inaan column-ka ka qaato boqolkiiba 50 12kii 6 ka qaato marka oo jeedaan labadan ugu horeeya waxay qaadanayaan 12 labadan ku xiga saas ugu soconayaan marka 3 page ayuu noqdaa 6 lagu dhuftay 12 waxyaabaha muhiimka waxay tahay ama aad inaad ogaatid
haddaad sii bedisid oo medium ka dhigtid iyo haddaad large ka dhigtid iyo haddaad extra large ka dhigtidba wuxuu qaadanayaa sidaan hore idinku soo sheegay cabirkii ahaa smallerka ayuu qaadanayaa. Marka haddaad doonaysa inaad midka ka sarreeya gaar u bedeshidna halkan ayaa sheegaysaa. Tusaale waxaa leedahay marka aan joogo column MD4 markaan joogo large screen medium screenska midkiiba ku fadhiisto 4 oo ah boqolkiiba 30 4 lagu dhufto 3 waa 12 marka boqolkiiba 30 ku fadhiisanaya. Okay, medium screenska eegno. So waxa u jeedaan marka aan joogno extra large-ga inay jabay page-kan sababta kii ugu horeeyay waxaan ku iri waxa ku fadhiistaa boqolkiiba 30 si darteed page-ku jabo. haddii doonaysa inaad dhammaantood ogaatid farsamada baan kuu sheegayaa. waxaan ka soo qaadaynaa inaad rabtid inaad dhammaantood bedeshid intana highlight garanaysa haddaad VS Code isticmaalisid Ctrl D ayaa qabanaysaa waxoo dhan xaggana aad soo aadaysaa calaamadda yar ee leftiga halka ayaa space leedahay marka leedahay column MD4 medium screenska waxay ka dhigtaa mid walba inuu ku fadhiisto boqolkiiba 30. So haddaynu ku noqono boqolkiiba 100 bay ku fadhiyaan. haddaynu eegno kuwan waa extra small sorry SM ka haddaynu eegno boqolkiiba waxay ku fadhiyaan 50. haddaynu medium u gudubno sida iPad oo kale oo ujeedaan wuxuu ku fadhiisanayaa mid walba boqolkiiba 30 oo ana halkan waxaan ku soo sheegay afartan waxay u taagan tahay boqolkiiba 30. saddexda ugu horeeya column joogtaha koowaad ku fadhiisanaya saddexdan kale joogtaxna ku fadhiisanaya jiiftaha labaad. marka already column medium screen wuxuu u taagan yahay large-gi iyo extra large-gi maadaama ayagii aanan wax rule u sheegin. So haddaan rabo inaan kuwii kalena rule u sheego already waxa u jeedaa hadda waxaan taaganahay haddaan dooto laptop wuxuu ka tirsan yahay extra large screens wuxuu qaadanayaa rule-kii kii ka hooseeyay sababtaa isagii weli ma sheegin. waa in isaga gaar u sheega aan dhahaa ii highlight gareeya column LG large screenskana 3 u qaybi 3 u soo bixin oo 3 maxay tahay waa 25% 4 lagu dhiftay 3 waa 12. okay marka medium screenska markaan joogana waxa u soo baxay 3 iyo 3 6 3 iyo 3 12. sidoo kale large screenska markaan joogana waa same waxaan extra large-gi isku si ay u qaadanayaan. marka haddaan yareeyo medium-kii waa 4 iyo 4 iyo 4 large-giina waxaan ka dhigay 3 iyo 3 iyo 3 12. marka 3 lagu dhiftay 4 waa 12 halkan waxa weeye waa 3 lagu dhiftay 4 lagu dhiftay 3 waa 12. ugu dambeynna waxaan soo sheegi doonaa extra large screens oo ah column extra large XL dibadda waxaan leenahay 2 extra large maanta soo baxaya fiiri haddaan doorto laptop waa extra large sababtoo ah ama TV oo kale laptopyada qaarkood baa kala weyn. marka 6diiba waxay ku fadhiisteen jiiftixii koowaad sababtoo ah mid walba wuxuu qaatay 2 6 lagu dhiftay 2 waa 12. ugu dambeynna waxaan samayn karnaa column SM extra small ayaan leenahay 12 ku fadhiisto. marka extra small markaan galno oo ah Samsung kan mid wuxuu ku fadhiisanayaa mid walba 12. column-ka koowaad loogu imaamayo jiiftaha koowaad iyo joogtaha koowaad la isku imaamayo. marka qaabkaas uga shaqeeyaan laakiin muhiim ah inaan waxaan oo dhan qortid. waxaa ku muhiim ah inaan isticmaalno aniga labada inta badan isticmaalo waxa weeye shakhsi ahaan extra large iyo large labada ma isticmaalaba. marka waxaan isticmaalaa saddexdan extra small-ka ugu yar shaashadaha ugu yar shaashadaha iPad-da kale oo dhexe ama marka iyaga la jiifiyo kabacdi waxaan dooranayaa iPad oo ah medium large-na waxa weeye waa laptop-yadii iyo wixii ka weynaana 3 column ay soo baxayaan. marka qaabkaas oo kale ayuu shaqeeyaa. wuxuu kaga baahan yahay inaad in badan tijaabisid qaabka uu shaqeeyo breakpoints-ka ama responsive layout-ka. khasabna maaha inaad column-yadoo dhan sidaa ka dhigtid waxay kaga baahan tahay practical fara badan. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq.